sida aynu ognahay fanka Soomaaliyeed marxalado aad iyo aad u kala duwan iyo Soomaali mar uu jiray iyo markii la magaaleeyay marka waxa jirta Cabdirashiidow fanaanku haddii uu yahay gabaya heesaa ama mu'allifta inuu yahay muraayadii shacabka waxa ay qabaan dawladda ama dadweynaha intiisa kale u tabiya marka fanaanku waa macalinka dadweynaha fanaanku Cabdirashiid riwaayadaha uu madhigo inuu dadka ku biyo wuxuu u sameeyaa in uu mashkalad ijtimaaci ama siyaasi oo markaa taagan uu ku daaweeyo marka waxaan ku tilmaami karaa fanaanku inuu yahay dawlad iskii caalamo leh waa macalin daba oo sida uu baruhuba uu tabaashiirta iyo sabuuradda uu ardayga wax uga dhago isaguna uga bara masraxa ama uga baahiya idaacadaha iyo rikoodhada marka sida runtii waa qof aan wax la gashan karin oo isagu wax abuura waxna kordhiya